kulan wacan daawadayaal ku soo dhawaada qodobada wararkooda ugu waaweyn aan idin helana waxaa ka mid ah Mukhtaar Robo oo 7 sano kadib magaaladii laga soo afduubtay dib ugu laabtay maanta 6 qodob oo jibiyay lafda garan horseedeen in dowladda federaalka Soomaaliya ay si fudud ay u qabsato Baydhabo wararkii ugu dambeeyay xaaladda Baydhabo iyo fuud kala duwan oo maanta gaaray magaaladaasi qodobadaas iyo waxyaabaha kale nagu soo kordhay wararka ugu waaweyn ayaan ku eegi doonaa haddii la yiraahdo balse saaxiibayaal waxaan idinka codsanayaa inaad subscribe saartaan channelka isla markaana aad la socotaan wararka halkan aan soo gelino mahadsanidin dhammaantiinba aynu ku bilowno wasiir Mukhtaar Robo oo maanta tagay magaaladii 7 sano ka hor ay ka soo afduubteen ciidamada Itoobiyaanka sanadkii 2018 halkaasi oo doorashadu ay ka dhaceysay isla markaana uu ku guuleystay hogaamiye xilka laga tuuray Cabdilcasiis Xasan Maxamed Lafdagaren sidoo kale magaalada Baydhabo maanta waxaa gaaray gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe oo ay weliyaan wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya ee xildhibaano ka soo jeeda halkaasi wasiirka arrimaha gudaha ayaa magaalada Baydhabo wuxuu u tagay inuu halkaas uu ka qabto doorasho la filayo inay ka dhacdo magaalada Baydhabo ee gobolka Baay madaxdan ayaa kulamo siyaasadeed oo xoog leh waxay ka bilaabi doonaan magaalada Baydhabo tagista madaxdan magaalada Baydhabo ayaa ka dambeysay kadib markii shalay magaalada ay la wareegeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya isla markaana xilka laga tuuray hogaamiyihii maamulkaasi Cabdilcasiis Xasan Maxamed Lafdagaren haddaba warbixintan soo socota waxaan ku eegi doonaa 6 qodob oo jibiyay Lafdagaren isla markaana dowladda federaalka Soomaaliya u horseeday inay si fudud u qabsato magaalada Baydhabo ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa shalay si rasmi ah u wareegay magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaar ku ah maamulka koonfur galbeed ciidamada dowladda oo markaasi ka soo dhaqaaqay dhinaca Daynuunay ayaa howlgal military ku galay magaalada Baydhabo iyaga oo qabsaday saldhigyo iyo xarun muhiim ah mana jirin difaac culus ay kala hortageen markii ay gudaha u galayeen magaaladaasi isla markaana ciidanka daraawiishta ayaa kala firxaday haddaba su'aasha ugu weyn ee la isweydiinayay ayaa sababta keentay in si fudud loogu adkaado hogaamiyihii maamulka koonfur galbeed Cabdilcasiis Lafdagaren oo muddo 7 sano xukumayay maamulka koonfur galbeed isla markaana lahaa ciidan iyo maamul dhisan janaalka codka qaranka media ayaa ogaaday 6 qodob oo door muhiim ah ka qaatay isbeddelka degdega ah ee ka dhacay magaalada Baydhabo 1 kala qaybsanaan bulsho kala qaybsanaan xooggan oo muddooyinkii dambe ka dhex jirtay shacabka iyo siyaasiyiinta koonfur galbeed ayaa si weyn u wiiqday awooddii siyaasadeed ee Lafdagaren ayaa lagu eedeeyay inuusan ku guuleysan mideynta bulshada iyo siyaasiyiinta taasi oo keentay in taageeradii uu ka haystay ay si weyn u yaraato shalay markii ciidamada dowladda ay gudaha u galeen Baydhabo waa halkaasi si diiran ugu soo dhaweeyay shacab badan taasi oo muujinaysa in isbeddel siyaasadeed ee qayb ka mid ah bulshada ay doonayeen dadka qaar ayaa caleemo qoyan ku soo dhaweeyay ciidamada dowladda halka kuwa kalena ay muujinayeen taageero siyaasadeed oo cad labo awoodda mucaaradka ee gudaha deegaanka mid ka mid ah arrimaha soo dejiyay in laga adkaado hogaankii koonfur galbeed Lafdagaren ayaa ahaa in dagaalka ay qayb ka ahaayeen ciidan maleeshiyaad oo taageersanaa siyaasiyiinta la safan dowladda federaalka kuwaas oo si wanaagsan u yaqaanay deegaanka iyo gudaha magaalada Baydhabo taageerada ciidamadan ayaa sahashay in ciidamada dowladda ay si degdeg ah ugu fidaan magaalada ciidamada ayaa la sheegay inay markii hore ay ku sugnaayeen deegaano badan oo ku dhow magaalada Baydhabo isla markaana ay door weyn ay ka qaateen jibinta difaacyadii hore ee yaalay wadooyinka soo gala magaalada Baydhabo arrintaas ayaa waxa ay fududeysay in ciidamada dowladda ay si fudud ay ku gaaraan bartamaha magaalada Baydhabo 3 qorshe la'aan difaac Lafdagaren intuu xukunka hayay ma uusan samaysan difaac ka fog magaalada Baydhabo taas oo xeelad military oo muhiim ah ciidamada dowladda ayaa maalin ka hor joogay Daynuunay oo qiyaastii 30 kiiloomitir u jirta magaalada Baydhabo mana jirin difaac culus oo ka hor yimid intii ay ku sii jeedeen magaaladaasi falanqayaal military ayaa sheegay in haddii difaac adag laga samaysan lahaa deegaanada u dhaxeeya Daynuunay iyo Baydhabo ay adkaan lahayd in ciidamada dowladda ay si degdeg u gaaraan magaaladaasi tani waxay muujinaysaa in maamulka Lafdagaren uu ku guuldareystay qorshe difaac oo istiraatiiji ah 4 taageerada cirka howlgalka dhulka ee ciidamada ayaa waxaa ku lamaanaa midka cirka iyadoo la rumaysan yahay in Turkiga uu taageero military siiyay ciidamada dowladda federaalka ee ku sii jeeday Baydhabo intii uu socday howlgalka diyaaradaha dagaalka ayaa duqeymo ka geystay goobo ay ku sugnaayeen maleeshiyada kooxda Al-Shabaab taasi oo sahashay in ciidamada ay si nabad ah u dhaafaan deegaanadii ay ku sugnaayeen kooxda tani ayaa noqonaysa markii ugu horeysay in Turkiga uu si toos ah qayb ugu noqdo dagaal gudaha oo ka dhacaya magaalo ka tirsan Soomaaliya
taasi oo muujinaysa isbeddel cusub oo ku yimid siyaasadda arrimaha Soomaaliya. 5. Mowqifka Itoobiya ee xiisadda. Doorka Itoobiya ayaa kaalin weyn ka qaatay wixii shalay ka dhacay magaalada Baydhabo, maadaama ciidamo ka tirsan ay ku sugan yihiin magaaladaasi. Itoobiya oo hore loogu tirin jiray dal si dhow ula shaqeeya maamulka Lafdagaren ayaa markaa muujiyay dhexdhexaadnimo iyadoo aan si toos ah uga qayb qaadan dagaalka. Dhexdhexaadnimada Itoobiya ayaa la sheegay inay dhabarjebin weyn ku ahayd hogaamiye Lafdagaren, maadaama uu hore ugu tiirsanaa taageerada ciidanka Itoobiya ee ku sugan Koonfur Galbeed. Markii Itoobiya ay ka gaabsatay inay difaacdo isla markaana ay la safato Lafdagaren, waxaa si weyn u daciifay awoodda militari ee Lafdagaren. 6. Muranka muddo kororsi. Muranka siyaasadeed ee ka dhashay muddo kororsiga iyo doorasho la'aanta lagu eedeeyay Lafdagaren ayaa ka mid ah arrimaha soo dejiyay guuldaradii hogaankii Koonfur Galbeed. Siyaasiyiin badan oo mucaarad ah ayaa muddooyinkii dambe ku eedeynayay Lafdagaren inuu diiday inuu qabto doorasho xor oo xalaal ah. Arrintan ayaa keentay cadaadis siyaasadeed oo gudaha iyo dibadda, taasoo ugu dambeyntii sababtay in siyaasiyiin badan iyo xildhibaano ay ka hor yimaadaan maamulka Lafdagaren, isla markaana ay taageeraan isbeddelka ka dhacay magaalada Baydhabo. Isku soo wada duub, isku darka kala qaybsanaanta siyaasadeed, taageerada maleeshiyaadka deegaanka, istiraatiijiyada militari ee liidata, iyo doorarka dalalka shisheeye ayaa la rumaysan yahay inay sabab u noqdeen in si degdeg ah loogu adkaado hogaamiyaha Koonfur Galbeed Cabdilcasiis Xasan Maxamed Lafdagaren. Xaaladda magaalada Baydhabo ayaa haatan ah mid degan, waxaana si buuxda gacanta ku haya ciidamada xoogga, iyadoo halkaasi ay gaareen wufuud sare oo ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya. Maalmaha soo socda ayaa lagu wadaa in magaalada Baydhabo lagu doorto hoggaan cusub. Dhinaca kale, warar soo baxay ayaa sheegaya in ra'iisul wasaare ku-xigeenka labaad Jibriil Cabdirashiid loo magacaabay inuu sii hayo xilka maamulka Koonfur Galbeed. Inkastoo arrintan la isku raacay, haddana waxaa jirta dhinacyo badan oo diidan. Waxayse u badan tahay in lagu qanciyo beelaha Marefle in ay oggolaadaan in Digil uu sii hogaamiyo xilka. Magaalada Baydhabo maalmaha soo socda waxaa ka dhici doonta doorasho. Inta ka horreysa waxaa xilka sii hayn doono qof ka soo jeeda beelaha Digil.